kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa Warsan News waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtan waxaan soo dul taagi doonaa madaxii qaraxyada kooxda al-shabaab oo lagu dilay howlgal qorsheysan waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii abaabulay qaraxii uu ka badbaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud shakhsigan halka uu kooxda kaga biiray iyo taariikhdiisa guud ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo si la mid ahna waxaan muuqaalkan rabaa inaan iyana aynu ku eegno xogta iyo wararka dheeraadka ay ka soo baxaya qaabka ay ku suurta gashay in Hargeysa ay ku soo gaaraan Israa'iiliintii ugu badneed oo ku qulqulaysa magaalada Hargeysa yay tahay cid u suurta gelisay halista ka dhalan karta ayaynu isdul taagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal channelkeenana rukunta oo subscribe saarta hadduusan idiin saarnayn subscribe kana mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama commentiga kaga soo dhiiba hagaagkan ku bilaabo injineerka waxaa lagu dilay 10 December sanadkii hore duqeyn ka dhacday Jilib haddaba waa kuma injineerka oo ah shakhsigii ama maskaxdii ka dambeysay qaraxii uu ka badbaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee lagu la eegtay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan rabaa in xogtiisa kooban oo aan halkan idinku soo baahino shakhsiyadiisa taariikhdiisa waxbarasho halka rasmiga ah ee kooxda shabaab uu kaga biiray iyo xilalkii kala duwanaa ee kooxda dhexdeeda uu ka soo qabtay shakhsigan waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cismaan Maxamed Abuukar waxaa loo garan ogaa injineer Ismaaciil waxa uu Muqdisho ku dhashay Julaayo 1908 waa 1982 waxbarashadiisa sare dugsiga sare ee Imaam Shaafici ayuu ku qaatay sanadkii 2000 kadib sanadkii 2007 waxa uu ka qalin jibiyay jaamacadda Ritsi ee dalka Suudaan ku taala kana bartay culumta electric engineering waxa uuna culays dhinaca amniga oo ku ahaa Soomaaliya iyo gobolka caalamka intiisaba injineerka waxa uu kooxda al-shabaab ku biiray 17 sano ka hor iyada oo dhanka warbaahinta loo xushay markii kooxda uu ku biirayay kadibna waxa madax uu ka noqday waaxda farsamada hubka iyo qaraxyada kooxda al-shabaab goor dambe waxa madax looga dhigay maamulka guud ee qaraxyada iyo dilalka tooska ah ee amniyaadka loo yaqaan waxa uu kale uu madax uu ka ahaa warshada macmalka ah ee sancada qaraxyada lagu bacrimiyo ee lagu abuuro ninkan isaga oo xafiiska dilalka iyo qaraxyada jooga ayaa haddana isagii waxa uu hagayay qaybta warbaahinta ee kooxda afkeeda ku hadasha qayb ka mid ah qaraxyadii uu fuliyay waxa ka mid ah qaraxii cirgaabta ah ee ka dhanka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhacay March 2025 weerarkii gudka Jilcow ee dhacay October 2025 qaraxii Zoobe 14 October oo ay dad badan oo Soomaaliyeed ay ku baaba'een uu qayb ka ahaa waxa kale uu qayb ka ahaa qaraxii hargaha iyo saamaha waa qaraxii hargaha iyo saamaha ee dhacay 4 October 2011 qaraxii lagu dhamaaday ee ka dhacay ex control afgooy 28 December 2019 qaraxii Zoobe 2 waa qaraxyadii inta badan hoteelada iyo goobaha dadweynaha ee xarumaha dawladda ee la fuliyay ayuuna qayb ka ahaa Ismaaciil injineerka waxa uu Hargeysa la sheegay in la geeyay bartamihii sanadkii 2008 waxaana halkaasi goob maskaxdiisa lagu soo bedelay looguna soo qaaday dhinaca iyo bay'ada kooxda wuxuuna ahaa gacanta midig ee horjoogii weynaa ee kooxda shabaab ee la dilay Axmed Gudone iyo gacanta koobaad ee maanta ee ku nool sida uu qoraalka ku cadeynaya Caliiro oo bartiisa Facebook ku soo qoray Silac Abu Ubayda oo ah horjoogaha kooxda al-shabaab sidoo kalena ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ay dawladda Soomaaliya ka bixisay waxay sheegeen dawladda Soomaaliya inay baaris wadaan waxay xaqiijiyeen dilka 20 xubnood oo ay ku jiraan horjoogyaal sare oo kooxda shabaab ah iyo maleeshiyaadkooda
dhinaca kale haddii aynu eegnana sidee ayay ku suurta gashay qulqulka Israa'iiliinta lagu dhex arkayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah maamulka Somaliland tan iyo 26kii bishii hore ee December sanadkii hore 2025 markii ay Israa'iil ama Yahuudu ay u aqoonsadeen Somaliland in ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waxa fagaarayaasha iyo goobaha dad weynaha isugu yimaadaan iyo wadooyinka lagu arkaya Israa'iiliyiin hugan calanka Somaliland iyo midka Israa'iil oo muuqaalo kala duwan looga soo dhex duubaya bartamaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland dad badan ayaa su'aalo ka keenay sidee ay arrintan ku suurta gashay miyay ku timid rabitaan dhinaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ah inay u ogolaatay fiisaha dalku galka ah ee e-visa mise qorshe kale ay isticmaaleen dadka isweydiinaya su'aalahan waxa jawaabta uga filan in dawladda Soomaaliya ay hor istaagtay Israa'iiliyiin badan oo soo dalbaday e-visa doonaya in gudaha dalka ay soo galaan waxaana ay gabi ahaanba Israa'iiliyiinta lagu arkay wadooyinka waaweyn ee Hargeysa ay ka soo galeen dhinaca dalka Ethiopia oo fiisaha dalkaasi ayay ka soo dalbadeen waxaana socdaal dhinaca dhulka ah ay kaga soo galeen dhinaca xadka ay Soomaaliya la wadaagto Ethiopia ee Wajaale iyagoo gaadiid ku socda ayay qaarkood gudaha Hargeysa soo galeen halka kuwa kalena ay ka soo degeen dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waa dhinaca Jigjige waxaana dhammaantooda ay yihiin oo ay u badan yihiin wariyaal u dhashay dalka Israa'iil oo doonaya in ay ka tabiyaan deegaanada Somaliland xogaha iyo macluumaadka ku saabsan sida ay ugu dabaaldegeen aqoonsigii ay ka heleen Yahuudda iyo sida ay suurtagal ku noqon karto in dadka deegaanada Somaliland lagu abuuro aragtida la xiriira in Israa'iiliyiintu ay uga dhow yihiin dadka kale inteeda kale sida dadka Soomaaliyeed oo ay doonayaan in fikirkooda iyo aragtidooda ay ku cabiraan amaba ay iyagu ku abuuraan aragti ka duwan midda imikan ay aaminsan shacabka reer Somaliland qaarkood waxay ku dhiiradeen dadka deegaanada Somaliland inay hubtaan calanka Israa'iil halka kuwa kale qaarkoodna muuqaalka halkan kaga muuqanayo uu ka mid yahay ayba u sujuudayaan calanka Israa'iiliyiinta waxaana arrintan ka dhashay kacdoon iyo gudood weyn oo dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen mid ka mid ah mashaayikhda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Somaliland ayaa shalay si cad arrintan kaga hadlay wuxuuna kaga digay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro in uu ku milmo la macaamilka Israa'iiliyiinta wuxuuna kaga digay halista ka dhalan karta haddii uu ogolaado amaba uu saxiixo waxa loogu yiraahdo heshiiska Abraha isaga oo soo bandhigay qataraha weyn ee uu dalkeena u leeyahay haddii arrintaas uu qaato oo ay qayb ka tahay in gabi ahaanba la xaqiro jiritaanka dadka u halgamaya xurriyadda reer Falastiin ee gumaadku ay ku hayso gumaystaha Israa'iiliyiinta waxaana saacado kadib ay Somaliland xabsiga u taxaabeen sheekhaasi oo kol hore sheegay inuu ka mid ahaa culimaawidiin la kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro kagana digay halista iyo qatarta weyn ee uu dalka u horseedayo waxaana uu sheegay in aysan marnaba ka gambanaynin xaqa isla markaana intii kulanka uu socday ay u soo bandhigeen axaadiis iyo aayado quraan ee ka digaya halista iyo cadaawadda Israa'iiliyiinta ay damacsan yihiin si kastaba ahaatee kacdoon xoogan ayaa ka jira arrintan oo ay sameynayaan bulshada deegaanada Somaliland qaarkeed oo aysan ka simneen marka la eego aragtida ku qodonta in xiriir la yeesho Somaliland Israa'iil waxa ay arrinta aqoonsiga Somaliland kaga iibsatay saddex arrimood oo mid koobaad ay tahay in ay ogolaatay maamulka Somaliland hoggaankeeda inay qayb ka noqdaan heshiiska Abraham si la mid ahna ay ogolaadeen in ay deegaanada Somaliland loo soo raro 1.5 milyan oo shacab reer Falastiiniin ah oo la doonayo in si qasab ah deegaamin loogu sameeyo deegaanada Somaliland isla markaana dhulkoodii ay xaq u lahaayeen laga soo raro halka qodobka saddexaad uu yahay heshiiskan ku qotomay Somaliland u ogolaatay in saldhig military ay Israa'iil ka samaysato qayb ka mid ah berbera halkaasna ay kaga duulaan tagto dawladaha ay ishayaan
ama aragtida siyaasadeedba ay isu khilaafsan yihiin kol hore arrintan waxaa shaaciyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu soo bandhigay halista iyo khatarta weyn ee ka dhalan karta waad ku mahadsantihiin la gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen mar kale aan idin xusuusiyo inaad ku soo biirtaan janalkeena Warsan News nabadgelyo